sababta ku kaliftay liicaad inuu soo galo fanka maxaa waaye horta heesaha idiga waxa u maleeysiin kaliya inuu iska qaado liicaato heesooyinkaas la qaadooyo macnay ku socotaa macnaha loogu talagalay siyaabo heesas oo u qaadooya shout out to my nigga Uzi official like subscribe share that's right السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامي سومالي وين ملو بادوغان جوجتين وأنيقا أوزي جانالكا دابنيسين وهي أوزي أوفيشال سوان غشوان هاكسا مانتا إيو أنا لا فيديو سابانكا سكو أركتين محارة فرنتان إنا أدرو الليعات أنا روا هيستا أوسوقا دراد حدث هالمان لإيتالا ساروانا كهدلو مقارتين هيستاس حروفه هدي وحيد محاربا إلا قرباشا روا إذن كسي حقيقة صحة وحاول بقى صحة إنا إذن شاقنا روا سو marka insha Allah video inta isu gudagal waxaad ka codsan subscribe na shartin like comment shirka ka ilaa boqolku bixira ka dhiman wadabiga saaranahay waxa waaye aantan waata taqsiruna laakiin insha Allah waa iman doona waxyaabo kala dhiman horta aanta ma ogeedeen social media waxa isdaba socday heesooyin badan la isku heystay waxyaabo badan isku dhagayay marka horta sababta ku kaliftay liicaad inuu soo galo fanka maxaa waaye ku fikirtay maxaa waaye qofku waxa ku dhalin kara inuu fanka soo galo markuu hadaf leeyahay iyo markuu yani hami weyn oo uu leeyahay fanka inuu soo galo oo asiga og yahay oo aaminsan yahay wax inuu sameyn karo oo qaadi karo qofka waxa soo kalifay inuu fanka soo horta liicaad heesaha oo qaadayo hees wallahi horta bay ima sheegay heesooyin oo kal ilaabe waaye heesooyin yani waxa waaye ku saabsan jaceelka heesooyin ku saabsan wadaniyad dadka qaar oo kale ma aan heesooyin qaar soo qaadayo ma ahan laakiin heesiisa waxay ku fiican yihiin ay tahay runta fiican heesiis wuxuu ku fiican yihiin heesooyin jaceyl oo asiga wuxuu soo maray ka hadlaayo horta heesaha idiga waxa u maleeysiin kaliya inuu iska qaado liicaato heesooyinkaas la qaadooyo macnay ku socotaa macnaha loogu talagalay siyaabo heesas oo u qaadooya waxa fiican qof walba inuu fahmo fiican marka heestiisaan dhageysanaynaa midda oo labaad oo soo qaad mid hargeysa maan mid kale oo soo qaad heesta magaceed waxa lahaa fudadii ku dilin taasaan waxaan dhageysan ila daawada فكرة كوكو فكرة قلبي جاي فريق فرحتي أهو هنيجا فوقا هرتا هريدا سيتي باي مشي جاي واللي هاي أبوان هريدا سيتي لكن أنا جو بحق من سنة هاي اللي عاتو هي سهلن أو أسيغ خاضايو أما أسيغ أو سمينايو أبوان هدي له هو قرأ إنه هاف أو كلية أنت كليتني liicaad oo leeyahay aaminsanahay sababtoo liicaad waa asiga dhan waa qoraa waa qof fikiro maskaxdiisa waxyaabo ay ku soo dhacaan oo sameeyo qofka maanta marka cod leeyahay ama uu leeyahay fikrad maskax uu leeyahay waxa uu sameyn karaa anigu waxa aaminsanahay liicaad heesooyinkan oo sameynayo inuu asiga leeyahay yani eradan iyo waxaan oo sameysanayo asiga inuu leeyahay anaga aaminsanahay sababtoo marka isla joognay liicaad wallahi habeenkii marka la wada fadhiyo la wada baashaalaya aniga asiga iyo hanad oo kaleete أنا هيسوين قارو قاداي ويعني شيكوين قارو كشكيناي فكردوي قارو إنه شيء جاي أنا وح مثلا هاي هردان إنه أسيق اللي هاي وقراي هدي وبضت سنة إن أبوان قرا أبوان قصنا وحير يعني أو فيرنا بس وحياة أو كسحاب موي أنت كلا وح مثلا اللي عاد إنه ليها مثلا هاي سازرات هاي استعمالات أو سوق هذا كارلو أرتا والله liicaad marka kasmarkuu joogo ama kaligiis uu yahay wuu fikiraa wuxuu ka fikiraa wuxuu sameeynayo yani waxyaabihii kale yani uu jecel yahay maad hamigiisa ay tahay orteysooyinkan oo qaadayo asiga kama ahan mala yani dadka qaar waxay moodaan mala yani ama wax iska fanka iska soo gal iska qaade ma ahan runta fiican wallahi midaas ma ahan yani sheekooyin badan jira waxyaabo qaar ana ogayaan jira marka heesooyinkan oo qaadayo waxyaabo jecel asiga maanta qulubtiisa ku jiro yani wuxuu asiga maanta oo soo maray oo ka hadlaya ma ahan idinka ha u maleelina just kaliya inuu asiga fanka soo galay maala yani uu qaadayo ama maala yani ka tahay ma aan heesooyinkan wuxuu qaadayo waxay tahay wax asiga oo soo maray jecel nafsadiisa wuxuu oo jecelay iyo wixii oo rabay maanta oo ku haminayay waxyaabo soo ka hadlaya maana wax kale kama hadlo liicaato marka sidaas u fahmaya waxyaabo kale loo fahmay dadka qaar maanta waxay isku fanka u soo galaa wax hore iska qaadaa ma ahan runta fiican runta waxay tahay liicaato heestan oo hadda uu qaaday oo tan labaad oo qaaday fudadiisan ku dilin wuxuu qaaday ee tahay wax uu soo maray asiga qulubdiisa ku jirtay oo wuxuu soo arkay rafaadka dhibka oo soo arkay kama talooya matal ahaan oo heestan u qaadaya jaceelka oo soo maray noloshiisa waxyaabihii oo soo maray jaceelka wax dhan oo ka hadlaya marka inta kala dhameysanaynaa
fogaa والله horta heestan aad iyo aad u macdahay walaalkay liicaad waxa ku leeyahay ina keep going hore si soco heesooyinkaaniitan waa arjeyna heesi kala qulubtada ugu waxyaabi kale maanta mar walba oo yani noo sheegi jirtay ina sameyn doontiin waa arjeyna insha Allah mar walba waxa waaye qof walba wuxuu jecel yahay hamigiisana waxa fiican sida liicaad oo kale inuu rumeeyo oo yani oo si sameeyo waxa walba maanta hadafka aad leedahay inaad gaartid fiican ina ka mid dhalisid liicaadna waxa waaye qof maanta hor socod leh waaye qof maanta hadaf leh waa qof maanta yani halku tiiro leh oo yani maanta wuxuu asiga rajeynaa inuu sameeysan karo waa taas aad iyo aad wax lagu farxo wax lagu daydo waaye ana mar walba jeclaa qofka maanta asiga ana heer isgaarsiin noloshiisa ana horumar gaarsiinaa dadka walaalihiisa kaleetana ana waa jeclaa qofkaas kale inaan ku daydo ina yani aafiriyo liicaadna waxa waaye qofka wuxuu kamid yahay dadka maanta wadada fiican tusiyo mar walba qofka walaalkiisa garab istaago waxyaabo qurux badan u sheego waxyaabo fiican fikradda madaxa ka galiyo aniga wallahi maraha xasuustaa يعني waxyaabo badan dad wax aaminsanaa nolosheeda waxyaabo qaar ah laakiin asiga wuxuu ii sheegay habeen dhaxdaas ay ahayd asla wada hadleen wuxuu dhahay wiligaaga qof noloshaada yani ha ka dhigin wax mala yani mise wax adiga oo iska fudud ka dhiga noloshaada inay kugu weyntahay qaali ee kugu tahay maanta adiga horumarka arjeenis in isgaarsiin kartid wax walba samaysan kartid wax walba ay tahay garab waa helaysaa laakiin muhiimad waxa wax walba adiga ka soo go'da waa hadii adiga wax ay ka soo go'in ma laga yaabo in wax adiga asmaysid taasna waa iisha waxyaabo badan jira aan ku xasuusto insha Allah waxaan sameyn rabaa hadda kadib ina documentary badan ay soo wada aragnay waxyaabo badan rabaa inaan sameeyo oo documentary dheer ah qayb inaan soo diyaariyo qof walba inaan ka soo hadlo ka soo bilaabo meesha aan saanteeda ka soo qaado hoos ee tashbaadin tinka ilaa rabaa nuudin iyo meesha hoos inaan ka soo qaado ilaa iyo meesha hadda aan marayaan rabaa documentary naag sameeyo qof walba inaan soo sameeyo rabaa insha Allah taasna waa rajeynaa marka liicaadna waxa ku leeyahay saaxiib macaan heestaaniti sa u jeedno waa macdahaye وكبريناي انت كلا دمنا انو سو داي waa sugi la'anahay heestaanid waxa waaye qalbigay sidata walaalo macaano liyo marka waxa waa heestaan noo soo fududay walaalkay macaan waa sugi la'anahay anaga bipeshna ugu jirnaa heestan kal ilaab waaye waxa waa ku faryeerstay adiga iyo nadmanashad waa ku taataqsatay heestaan wax kala waaye siibe adiga ba heesta yani marka tumaysid actionada ay bixinaysid iyo sida u hadlaysid qaabkaas waa lagu yaqaan abdi macaan ma fahad macaan la ku taaye waxa waaye saaxiibkay macaan jawaabta aday kugu socotaa والله فاكوليا نولو فرحت كنولو marka insha Allah video inta soo go'ayna video hada ka sheey ma ku qancay subscribe ka saar ayaantan views kooso iga jira idinkaasaan waxa waaye waa iga jiifsan ayaantan kor halo sii soo qaado hala sii kicii meesha insha Allah video marka inta soo go'ayna video waxay ta kulmin sidaan iyo nabad gali bye bye Shout out to my nigga Uzi official. Like, subscribe, share. That's right.